كان الشيخ كورن فريمها lagu soo diro Facebook ama WhatsApp iyo wixii la mid ah oo lagu oranayo fadlan gudbi hadii kale musiiba kugu dhacaysa ama wax lagu farxa ayaad helaysaa ama qaam bay kugu tahay ilaa maalinta qiyaamaha iyo wax la mid ah horta waxa aad bay u badan tahay dad baad moodaa shaqeynay ka dhigteen waa khuraafaad weey message kasta ilaahay baan kugu dhaarshay iyo wixii la mid ah kuwa Sheekh Faaraxada sheegay message kasta oo waxaas ay la socdaan waa khuraafaad weey wax loo baahan yahayna ma aha qofku inuu sidaa sameeyana ma aha baqdin oo baqayana inuu ku faafiyo ma aha waxa weeye haboon oo wanaagsan waxa weeye ma aha waxyaabaha noocaas in laga waantoobo in badanna waxaanu ogaanay bal rag ducaada oo da iska niyad wanaagsan ba message xadiis aad u dheer oo waxa weeye wada qisooyina ayaa loo soo diraya waxa la leeyahay ilaahay baan kugu dhaarshay 100 qof gaarsi 100kiiba kugu soo daraya waan u jawaabo waxaan ku war xadiisku waa beene ilaahay ka boqo iska jooji hana la iska hubiyo waxa noocaas walibana hadii ay tahay cilmi mas'ala cilmiya oo ilaahay wax laga sheegay oo nabi maxamed alayhi salatu wasalaam wax laga soo gudbinayo waxa weeye in aad iyo aad looga digtoonaado xulay nabiga alayhi salatu wasalaam من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين نك حديثي الشيخة لينيا حديث كاسينا نوشرين وعسوق دقلي إنا نوغي غليون فهو أحد الكاذبين لبضب بين عالم يتكمي دوي مركا واحد لغاية بأحاديث بين مسائل خلطا عقائدي أفكار خلطا إن لغو قلنا عرينا يا إنا أطفافي سؤال قلنا أتسكفافي نيس هل كاكو تشوش هذا علمي كذا هين والله تعالى